warqad codsi ah ka socota maamulka degmada Wasiil, ururka dhalinyarada, ururka culimada diinka, ururka haweenka ku socota dowlad goboleedka Galmudug State of Somalia ujeedo baahida degmada sida qodobka koowaad waxbarashada. waxaan codsanaynaa in loo dhiso dugsiyo sare sababtoo ah waxaan u aadnaa 200 kilomitir iyo ka badan dhaqaalana ma jiraan. qodobka labaad dugsiyada hoose dhexe waa 4 galaas. waxaan codsanaynaa in 4 fasal ee ka dhiman naloogu daro. qodobka labaad caafimaadka degmadu ma leh wax isbitaal ah marka laga reebo MCHyo aan iyaguna lahayn wax dhakhtar ah oo ka hawlgala. sidoo kale waxa ka dhaca dhimasho soo noqnoqotay ma leh baahi dabooli karta degmada sida ambalaas iyo tababarro caafimaad. qodobka saddexaad abaaraha degmada waxaa naafeeyay abaaro soo noqnoqday dunyadiina laayay dadkiina cayrteeyay daaqiina u dhammaaday. sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa in dadkaas loo gargaaro si degdeg ahna loo soo gaaro. qodobka afraad korontada waxaan codsanaynaa in ilayska soo dara soolarada jidadka magaalada sababtoo ah magaaladu waa magaalo weyn wax koronto ahna ma leh. amniga degmada waxa u diiwaan gashan 40 ciidan boolis ah. waxaan codsanaynaa in aan helno garaamkoodii dareyskoodii tababarkoodii mahadsanidin shaqo wacan. بسم الله الرحمن الرحيم reer Wasiileed aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina wada shaqaynteena sida aad noola shaqayseen way idinkaga mahad celinaynaa. waxaan kaloo idinkaga mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan ee aad noola wadaagteen baahida deegaanka jirta. reer Wasiileed haddii Ilaahay idmo waan bixi doonaa hadda waan xasuusanahay baahida deegaanka iyo sida kalsoonida leh ee aad noola wadaagteen. haddii Ilaahay idmana jawaab aad naga heli doontaan. aad u mahadsantihiin in badan aan idin salaameynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.